Assalaamu calaykum. Iiraan waa waddan dhaca galbeedka Aasiya. Waxa uu xuduudo la leeyahay dhowr waddan sida Afghanistan, Turki, Pakistan, Armenia, Azerbaijan, Ciraaq iyo Turkmenistan. Iiraan waa jamhuuriyad Islaami ah taa oo dadkeedu gaarayaan in ka badan 80 milyan oo qof. Waana waddanka 18aad ee ugu dadka badan caalamka. Waa waddanka 17aad ee ugu ballaaran dhanka baaxadda caalamka oo dhan. Waxaan ka sheekeynayaa waddan taariikh iyo saldanadooyinkii ugu weynaa caalamka soo mareen. Ku soo dhawaada mowduuc ku saabsan Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Tehran waa caasimadda Jamhuuriyadda Iiraan. 90% waddanka Iiraan waxaa ku nool muslimiin. 10 kale ee soo hartay waxay isugu jiraan bulshooyin haysta diimo kale. Markan Shiicada waxay ku xisaabsan yihiin muslimiinta. Waana bulshada ugu badan ee Iiraan, inkastoo Sunnigana nambar badan ku leeyihiin bulshada Iiraan. Madaxweynaha waxaa ka ah Xasan Ruuxaani, ka oo dib loo doortay 2017. luqadda rasmiga ah ee looga hadla Iiraan waa Persian. Lacagta laga isticmaalo Iiraan waxaa la yiraahdaa riyaal. Bedka dhulka Iiraan oo ah kan 18aad ee ugu ballaaran caalamka iyo kan labaad ee Aasiya waxa uu tixan yahay 1.65 milyan oo kiiloomitir square ah. Hogaamiyaha ugu sarreeya ee waddanka Iiraan waa Ayatollah Ali Khamenei. Xitaa waxa uu ka awood badan yahay madaxweynaha waddanka. Waa sida uu qabo sharciga Jamhuuriyadda Iiraan. Hogaamiye Ayatollah Ali Khamenei waxa uu awood u leeyahay inuu ku dhawaaqo madaxweynaha doorashada ku guuleysta iyo in uu magacaabo garsoorayaasha maxkamadaha, taliyaha ciidanka militariga. Sidoo kale waxa uu awood u leeyahay inuu xilka ka qaadi karo madaxweynaha dalka oo dhan. Xilliyadii hore ee waddanka Iiraan waxaa la oran jiray Persia, taa oo ah meel yar oo ka mid ah waddanka Iiraan. Magaca rasmiga ah ee dunida u taqaanay markan waxay ahayd Persia. Laakiin 1934 xukunkii militari ee ka talinayay Iiraan ayaa ka codsaday caalamka in loogu yeero Iiraan, taa oo ay ku cadeynayeen in Iiraan tahay waddanka Persianiska iyo kuwa aan ahaynba. Magaca Iiraan waa Aryan, taa oo micnaheedu yahay dadkii sharafta lahaa. Iiraan waxaa xukumay saldanado isxigxigay dhowr qarniyaalo laga soo bilaabo qarnigii 6aad ilaa qarnigii 20aad. saldanadii ugu horeysay waxaa dhisay Cyrus the Great qiyaastii 550 sano ka hor Nabi Ciise calayhi salaam, waxayna noqotay mid ka mid ah saldanadihii ugu waaweynaa ee taariikhda bini'aadamka, iyadoo gaartay Balqaanka Yurub, galbeedka iyo bariga Indiya ilaa waqooyiga Afrika. 1979 waa sanadkii ugu saameynta badnaa taariikhda Iiraan. Waxaa xilka laga tuuray hogaamiyihii Shah Mohammad Reza Pahlavi, waxaana xilka la wareegay Ayatollah Ruhollah Khomeini, ka oo amray in la laalo nidaamkii waddanka oo dhan. Waxa uuna u bedelay Iiraan dawlad Islaami ah taa oo isku xukunta diinta Islaamka, waxaana dumarka lagu amray inay qaataan xijaabka, gawaaridana kaxayn karin, taa oo ka dhigtay hogaamiye awood ku dhex leh Iiraan ilaa uu ka geeriyooday 1989. waxaana dhaxlay Ayatollah Ali Khamenei hogaamiyaha waqtigan ugu sarreeya Iiraan, waxaana la doortay inta noloshiisa ka dhiman. 1980 Iiraan waxay gashay dagaaladii ugu qaraaraa ee soo mara taariikhdeeda, marka oo ay xifaltan badan kala dhaxeeyay waddanka jaarka la ah ee Ciraaq. waxaana dhex maray dagaaladii ugu qaraaraa ee laba waddan wada dagaalamaan, ka oo socday muddo 8 sano ah. waxaana reer galbeedku xigsadeen dhanka Ciraaq, marka oo ay ka caawiyeen dhanka farsamada iyo hubka. laakiin Iiraan isma dhiibin oo waa ay dagaalantay. Sababihii ugu weynaa ee dagaalkaas dhaliyay waa murankii deegaanka xuduudda labada dal ku yaala ee Khuzestaan, ka oo la sheego inuu ka buuxo shidaal. Qiyaastii 1950kii waxa ay Iiraan ku fikirtay samaysashada hubka aadka wax u gumaada ee nuclear-ka, laakiin waxaa soo shacbaxday wixii ka dambeeyay 2000 in Iiraan si qarsoodi ah u samaysanayso hubka uranium-ka. Iiraan waxa ay ku jirtaa wadamada leh hubka nuclear-ka ka oo sida qatarta ah wax u gumaada. Iiraan waxa adduunyadu saaray cunuqabateen dhan walba ah si ay u joojiso samaysashada hubka, laakiin waxay si weyn uga soo horjeesatay joojinta samaysashada hubkan.
iyada oo ku andacoota inay ka dhaliyaan korontada uuna yahay mid nabad ah. Iiraan waxaa ka soo jiray ilbaxnimo aad u fog oo la gaarsiiyo ilaa 7,000 sano, waxaana si muuqata ugu yaala dhismooyin la dhisay ilbaxnimadii xilliyadaas aadka u fog.